Awad Mohamed Abdullahi, he plays Silma Wanderers in Malta in Division 1. Bilal G, he plays Haugesund in Norway in Division 1. iyadoo daawadayaasha ku xiran baraheena kala duwan ee bulshada iyo taageerayaasha xulka qaranka ay markasta diyaar u yihiin inay la socdaan wararkii ugu dambeeyay xulka qaranka ee isku diyaarinaya ka qaybgalka koobka adduunyada labada ciyaar oo xulka qaranka la balansan yahay bisha November wadamada Algeria iyo wadanka Uganda ayaa daawadayaal waxa warbixintan idin ku soo gudbinaynaa ciyaartooyda ka imaanaysa dalka dibadiisa kuwa ku cusub xulka qaranka Soomaaliya iyo kuwa hore ugu soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2019 markii xulka qaranka kulankiisa koowaad isreeb koobka adduunyada uu hal gool eber kaga adkaaday dhigis Zimbabwe hadaba ciyaartooyda ku cusub xulka qaranka Soomaaliya ee ka imaanaysa dalka dibadiisa waxa kamid ah Salim Cabdi Mayow oo u ciyaara naadiga Orlando City ee ka tirsan horyaalka wadanka Mareykanka Maxamed Nuux Mubarak oo ka ciyaara Sweden una ciyaara kooxda Malmo Cabdi Shariif oo hore u soo matray naadiga Liverpool iminkana ka tirsan daa'irada kooxda Wigan ee dalka Ingiriiska Bilal oo isagana ka ciyaara Division 1 ka dalka Norway Fahad Maxamed oo ka tirsan kooxda Ekenes Finland kana ciyaarta horyaalka heerka labaad iyo Axmed Yuusuf oo ka ciyaara horyaalka heerka labaad ee dalka Australia waana lixda ciyaartooy ee ku cusub ciyaarista xulka qaranka Soomaaliya iyagoo markii koowaad xiran doona maaliyada Ocean Stars waxaan leenahay idinkana waa mahadsantihiin dhammaanteen anagu isku duuban waxaan rajaynaynaa inaan soo guuleysano waxaa jira ciyaartooy hal jeer mataray sanadkii la soo dhaafay 2022 mar kalena dib loogu yeeray waajibaadka qaranka waxaana kamid ah Xaaji Cabdullaahi Cabduqaadir oo ka ciyaara horyaalka wadanka Spain wuxuu ka soo muuqday laacibkan qaranka kulanka Eswatini ee isreeb koobka qaaradda Afrika ee African Qualification Cup soo kale ciyaartooyda halka jeer mataray qaranka waxaa kamid ah Saadaq Faisal Cilmi oo ka ciyaara Norway Zakariya Xasan Maxamed oo u ciyaara kooxda #United ee ka dhisan wadanka Ingiriiska laacibkan wuxuu kamid yahay daa'irada ugu wanaagsan oo qaranka heli karo sanooyinka soo socda isagoo sanadka 2022 kamid ahaa xidigaha halbowlaha uu ahaa kulanka Eswatini uu la ciyaaray qaranka Xaaji Cabduqaadir Cabdi oo ka ciyaara horyaalka heerka labaad ee wadanka Mareykanka ayaa isagana hal jeer u ciyaaray qaranka sanadkii la soo dhaafay wuxuuna markan heli doonaa markii labaad oo u ciyaari doono qaranka Soomaaliya Ismaaciil Ciise Maxamed oo ka tirsan kooxda Stoke Sun ee ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee dalka Sweden isagana hal mar ayuu u ciyaaray qaranka ciyaarihii African Cup of Nations Qualification oo xulka qaranka la ciyaaray dhigis Eswatini sanadkii la soo dhaafay Mukhtaar Suleymaan Cabdi oo ka ciyaara horyaalka heerka labaad ee dalka Netherlands isagana hal jeer ayuu qaranka ciyaaray sanadkii la soo dhaafay kulanka Eswatini ee ka dhacay wadanka Tanzania iminkana waa markii labaad oo u ciyaari doona qaranka inay u duceeyaan ciyaartooyda matalaysa Soomaaliya oo hugsan doonaan maaliyada calanka qaranka Soomaaliya dhammaan Soomaaliya waxaan u rajaynayaa guul ciyaartooyda nimatali doontana waxaan u rajaynayaa guul insha Allah hadaba waxaa jira ciyaartooy tan iyo 2019 qaranka matalayay ee ka ciyaara wadanka dibadiisa waxaana kamid ah Cabdi Maxamed oo ka tirsan kooxda Columbus Crew ee ka ciyaarta wadanka Mareykanka Cabdi wuxuu kamid ahaa 2019 ciyaartooydii koobka adduunka isreebkiisa ee guushii ugu horeysay ka gaartay dhigooda Zimbabwe wuxuu soo kala qayb ka ahaa ciyaartooydii Eswatini la ciyaartay sanadkii soo dhaafay 2022 iminkana mar kale ayaa dib loogu yeeray laacib Cabdi waxaa qayb ka ciyaartooydii tan 2019 qaranka matalaysay Abel Gigil Maxamed oo ku dhashay Talyaaniga tan 2019 qaranka ayuu matalayay wuxuuna xidigan 20 June 2021 gool u dhaliyay xulka qaranka Soomaaliya ciyaarihii FIFA Arab Cup ee ka dhacay wadanka Qatar wuxuuna kamid yahay ciyaartooyda halbowlayaasha u ah qaranka Soomaaliya xidigaha tan 2019 qaranka matalayay waxaa kamid ah Xuseen Cabdikariin Maxamed oo kamid ahaa xidigaha 2019 qaranka matalay isreeb koobka adduunyada uu xulka qaranka 2000 la ciyaaray dhigiisa Zimbabwe waxaana laacibkan uu la dhashay kabtanka hore qaranka Axmed Casaayo soo kale liistiga qaranka ee sanooyinka la soo dhaafay matalay waxaa kamid ah Jaamac Umar Xasan wuxuuna kamid yahay ciyaartooydii 2022 qaranka u ciyaartay ciyaarihii isreebka koobka qaaradda Afrika ee African Qualification Cup Maxamed Caawad Cabdullaahi wuxuu kamid ahaa ciyaartooydii 2022 ka qayb gashay Arab Cup ee ka dhacay Qatar iyo soo kale ciyaarihii Eswatini xulka qaranka kula ciyaaray Tanzania iminkana mar kale ayuu macalinka u soo xushay ciyaartooyda matalaysa qaranka Soomaaliya xidigaha dalka dibadiisa ka imaanaya soo kale waxaa kamid ah Mustafa Maxamed Yuusuf Nakuja oo hore uga mid ahaa ciyaartooyda ka ciyaaraysay gudaha dalka isagoo u soo ciyaaray kooxaha Midnimo LLB Genyo iyo naadiga ciidanka booliska Soomaaliyeed Hagan iminkana wuxuu ka tirsan yahay kooxda ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee wadanka Sweden wuxuuna Mustafa tan 2016 uu kamid ahaa ciyaartooyda marar badan matalay qaranka Soomaaliya hadaba warbixintan waxaan ku soo koobaynay ciyaartooyda ka imaanaysa dalka dibadiisa kuwa halka jeer u ciyaaray qaranka kuwa in badan u ciyaaray qaranka iyo xidigaha ku cusub markii ugu horeysay ay xiranaya maaliyada Ocean Stars waxaan idin rajaynayaa inaad guul la soo laaban doontaan labadiina tiim insha Allah hadaba maxaa u rajaynaysaa xidigaha ka imaanaya wadanka dibadiisa